بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة الله والصلاة والسلام على رسول الله. وحوي آد بان رحمة هذا حريت التلمانقي صوب النام بحرين وموشينك كمالية مدحوينها لغينا هي آد بان رحمة هذا صوبت أنا رحمة هذا وحيتاي صب الصناعية دلكو بربر نكوتشي رسول السعودي intaasna waa loo soo halgamayay xigii halgamayay buu madaxweynuhu ka mid yahay oo hadda madaxweynayaashii ugu dambeeya wax hore noo soo marayna maaha wax macquulana maaha fidyo iyo burbur dalka inuu burburkii dib ugu sii noqdo ayaa cid doonaysa keliya dhihi karta waxaanu qaadaynaa tilaabo noocaasa marka aad iyo aad baan uga xumahay waxaan leeyahay ilaahay ha loo soo noqdo waxaan leeyahay wadanimada iyo soomaalinimada ha loo soo noqdo daartii ay dhaarteen ha loo soo noqdo ha la iska daayo xumaanta iyo muxuu ahaayey qofkaanaanan rabin iyo qofkaanaan rabaa arrinta maaha dalkaa ka weyn danta dalka ha la fiirsado ayaan leeyahay haddii heshiisyo ay jireen la galay oo dalo lala galayna haddii heshiisyadaasi waxay muxuu ahaayey dalka dan ayay u yihiin wixii aan dan u hayna waa laga hadli karaa waxay ka dhigan tahay in dalkii la burburinayo mar kale oo loo rabo burbur iyo dhulka inuu haddana ku dhaco muddaa la soo waray markii aan muxuu ahay annagu dalkii la burburay calankii dalka dib u soo celinay kadib intaasoo sano ayaa la soo waray haatana waa la wadaa shaqo fiican baa socota burbur inuu ku dhammaado dalku haddana dib ugu noqdo ayay noqonaysaa arrintaasna arrin la qaadan kara maaha shacbiga soomaaliyeedna ma aqbalayo waxaanan qabaa inay ka hor imaanayaan meel kastoo ay joogaan ciddii isku daydaana waa cid khiyaano qaran wadda waxaan leeyahay ha laga fogaado oo ha la joojiyo wixii khilaafa way jira haddii dawladda ma aha dawladda prime ministerka madaxu ah haddii dawladda wax laga sheeganayaa jiraan waa laba waxa weeye in lala hadlo oo guddiintada qabso laga wada hadlo weeye madaxweynuhu waa ka sarreeya waxaasoo dhan oo ragi dalka weeye waxaan leeyahay ha la daayo fidnada oo dalkan yaan la burburin isku soo noqosho wanaagsan warkii oo dhammaystiran gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan ayaa markii ugu horeeyay war qoraal ka soo saaray mooshinka xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya ay ka keeneen madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo cabdiraxiin xuseen ceelaawe oo si dhow ula socday ayaa warkan inooga diyaariyay gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya oo 72 saac la soo dhaafay wax waraha aan ka soo saarin mooshin xilka qaadisa oo qaar ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka ay u gudbiyeen isaga ayaa maanta ka soo saaray arintaasi war qoraal ah warqad ka soo baxday xafiiska gudoomiyaha golaha shacabka ayaa waxa ay u qorneyd sidan ujeedo wargelin maalintii axadda ahayd ee 9 Diseembar 2018 waxa xildhibaano ka mid ah golaha shacabka noo soo gudbiyeen hindise xilka qaadisa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya oo ay ku saxiixan yihiin 92 xildhibaan sida ku cad qodobka 92 faqradiisa koowaad iyo labaad ee dastuurka federaalka iyo qodobka 20aad faqradiisa koowaad ee xeeroosaadka golaha shacabka waxa hindisahaasi la waafajin doonaa sida uu qabo dastuurka dalka iyo xeeroosaadka golaha shacabka ayaa lagu yiri qoraalka ka soo baxay gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya qoraalkan ayaa waxa uu ku soo beegmaya xilli maalintii shalay ahayd xogayaha baarlamaanka uu warqad uu soo saaray uu ku sheegay inuu buray mooshinkii laga gudbiyay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka kadib markii 14 xildhibaan ay sheegeen in laga been sheegay magacyadooda gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka Cabdiwali Muudey iyo gudoomiye ku-xigeenka labaad Mahad Cabdalle Cawad ayaa laba maalin ka hor iyaguna waxa ay sheegeen in mooshinka laga gudbiyay madaxweynaha jamhuuriyadda uusan waafaqsaneyn sharciga isla markaana aan loo soo marin wadadii saxda ahayd warka ka soo baxay maxamed mursal waxay cirka sii gelinaysaa khilaafka ka taagan baarlamaanka dhexdiisa habeen wanaagsan daawadayaal aniga waa maxamed cabdi xaraare oo idin la socodsiinaya barnaamijka caawa wali waxa magaalada muqdisho ka jirta xiisad siyaasadeed oo ka dhalatay mooshin xilka qaadis ah oo laga keenay madaxweynaha Soomaaliya waxa la adkeeyay ammaanka aqalka madaxtooyada xafiiska ra'iisul wasaaraha iyo kanaaf hayeenka baarlamaanka
dhanka kale warqad ka soo baxday xafiiska xogayaha guud ee golaha shacabka ayaa lagu sheegay in ay soo gaareen qoraallo ka socda ilaa 14 xildhibaan aan idhaahde oo iyagu sheegay in laga been abuurtay xogayaha guud oo warqadan u qoray gudoomiyaha golaha shacabka ayaa sheegay in hindisaha xilka qaadista madaxweynaha ee loo soo gudbiyay aanu gabi ahaanba buuxin shuruudaha dastuuriga ah haddaba waxaa istuudiyaha ila jooga Mawlid Xaaji Cabdi oo si hoose ula socday qalaasaha siyaasadeed oo goor walba isbedelaya Mawlid maxaa ugu dambeeyay maxamed waa mahadsantahay ilaa hadda waxa ugu dambeeya waxa weeyaan in warqadana ka soo baxday xogeynta baarlamaanka xildhibaanada mooshinka waday iyaguna ay ku adkeysanayaan oo leeyihiin mooshinka wali sidii buu u jiraa madaxweynaha waxaan ka sugaynaa inuu baarlamaanka hor yimaado isla markaasna iska difaaco eedeymaha shir jiraad ay ku qabteen magaalada Muqdisho waxay kaloo ka hadleen 14 qof oo ay sheegeen in markii hore ay jireen magacyadooda iyo saxiixooda uu ku soo baxay meesha waxayna ku eedeynayeen xoghaynta in uu inta badan sameeyay inuu magacyada soo gudbiyo banaanka u soo dhigay sida ay hadalka u dhigeen marka waxa moodaa wili isjiidjiidku inuu jiro xalna uu soo wali dhaweyn waxa kale oo jirta in xildhibaanada mooshinka wada qaarkood ay baraha bulshada barahooda gaarka ay ku soo qorayaan ay leeyihiin gudoomiyaha baarlamaanka xor ma ahan oo wuxuu ku jiray xabsi guri hadal caynkaas oo kala inkastoo ilaa hadda ay nahayn cadeyntaas oo gudoomiyuhuna shaqooyinkiisa caadiga ah watay shalay waxaan la soconay isagoo la shariya safiirka Turkiga ee cusub ee Soomaaliya maanta waxa jira warar sheegaya in isaga iyo gudoomiyaha aqalka sare ay shireen laakiin ilaa hadda cadeyn uma hayno marka waxa moodaa wali waa gartay marka laga tago xildhibaanada iyo sidii xamar waxa uga socdaan dhinacyo kale ayaa jira oo arintan qaarna ka soo horjeedaan qaarna ay taageerayaan sida maamul goboleedyada maxaan arrimahaas ka wadnaa inta badan horta arinta waa lagu kala qaybsan yahay baraha bulshada markaad fiiriso taageerayaasha labada dhinac taageerayaasha dhaliilaya mooshinka iyo kuwa ka soo horjeeda inta kuwa taageerayaba waxa moodaa inay si weyn qolada kale ay u muujinayso inay guul gaartay oo ayagu ay markaa ku joogaan jidka fiican way jiraan dad siyaasiyiin oo arrintan ka hadlay waxa kamid ah ra'iisul wasaarihii hore Cali Maxamed Geedi oo sheegay in loo baahnayn Soomaaliya haatan in la geliyo khalq dhinaca siyaasadda Faysal Cali Waraabo kale dhinaca Somaliland waxa jirta inuu taageero mooshinka uu leeyahay xildhibaan saxbi u yahay inay mooshin caynkaas kala keenaan banaanbaxyada way jireen magaalada Garowe kale maanta banaanbax waa ka dhacay murashaxa madaxweynaha Puntland Dr. Bashiir Maxamed ayaa musharaxnimadiisa maanta uga dhawaaqay magaalada Garowe Sharmaake Cabdiqaadir ayaa warkan inooga soo diray magaalada Garowe munaasabadan ahayd mid uu ku shaacinayay musharaxnimadiisa musharax madaxweyne Puntland 2019 Dr. Bashiir Maxamed Xuseen ayaa ka dhacday magaalada Garowe caasimadda Puntland haween dhalinyaro isma iyo waxgaradkii kala duwan ee ka soo qayb galay munaasabada shaacinta musharax madaxweyne Puntland Dr. Bashiir Maxamed Xuseen ayaa si isku mid ah u taageeray musharaxa Dr. Bashiir Maxamed Xuseen wuxuu ka soo jeedaa oo ku barbaaray gobolka Mudug dugsiga hoose iyo kan dhexe wuxuu ka dhigtay magaalooyinka Galdogob iyo Gaalkacyo 1975 iyo 1981 wuxuu dugsiga sare Umar Samatar Gaalkacyo ka baxay u dhigtay 1982 sidoo kale wuxuu maray gurmadkii qaranka oo gutay 1985 isagoo muddo 9 bilood ah tababar ciidan ku qaatay xirada ciidamada Sinai ee Gaalkacyo ku taala isagoo markaa ku takhasusay difaaca cirka ee defense bishii Janaayo 1991 isagoo aan jaamacadii wali dhamaysan ayaa dawladda Soomaaliya burburtay isla sanadka wuxuu tagay dalka Talyaaniga oo dib uga bilaabay waxbarashadiisii sare 1997 ayuu ka qaatay shahaadada heerka labaad jaamacad la yiraahdo Talyaaniga anu ma akhriyo aqaan laakiin dowal aan koona ku taalo Italy ku taalo marka isagoo si gaar ah ugu takhasusay cilmiga dhaqaalaha iyo farsamada beeraha agricultural economics and engineering waxaan aaminsanahay inaanu maanta u soo guntan in uu Soomaali ka liibaano uma soo guntan waxa uu u soo guntaday waxa weeye intaasoo sano uu ka shaqaynayay in uu ku biiray ciil iyo caro ah wax uu isku dayi karo inuu hagaajiyo
oo uu fursad isu siiyey maanta u soo tafaxaytay Bashiir waayo muxuu u rabaa inuu madaxweyne noqdo aan isweydiino Bashiir wuxuu u rabaa inuu madaxweyne noqdo marka u horeysa intaan madaxweyne dalban wuxuu la yimi waa nin diin leh waa nin dhalinyar waa nin jecel dimuqraadiyada waa nin ixtiraama codka yar iyo codka weyn iyo inta u dhaxaysa waa nin u doode ah oo wadanka dayiciisa oo researchkiisa iyo la shaqayntiisa aad uga soo dhargay waxaas oo dhan waa xirfad ama tool uu wax ku bedeli karo weeye marka runtii waxaan qabaa ilaah duraale ka dhigo haddii uu helo inuu yahay qof ku habboon in Puntland uu ku hogaamiyo jidka loogu talagalay oo wanaagsan oo amniga nabadda iyo horumarka runtii sifooyinka kale oo aan ku aqaano waxa weeye inuu yahay qof mutadawwac oo dadka u jajaban oo barnaamij kasta oo mataqaanaa ama ha ahaato qaab samafaleed ama ha ahaato qaab wax bixin masaakiin waan runtii waxa oran karaa waa qof aad ugu dheereeya marka kelmad kasto halka laga sheegay waa hishtig waa sax weey caaw markii ninkaas waxa weey madaxweynaha waa ku habboon yahay anigu hadalka dheeraynayo waxaan oran lahaa waxa weey kulli anigu inta baarlamaanka ka aqaan waranka doorta baan oranaya waa ku dadaalaya musharaxa iyo musharaxiinta anigu cod ma bixiyo odayaasha cod ma bixiyaan laakiin waxaan leenahay musharaxiinta soo dhawaada dadaala ninkii wax helo ahlan wa sahlan dalkaaga u dadaal ninkii wax waayo qanac waanaad ku qanacdid weeye istabaarad iyo waxaas waa wax lagu daalayo macnaheed male intaasi kadib musharax madaxweyne Puntland 2019 Dr. Bashiir Maxamed Xuseen oo dhankiisa ka hadlay munaasabadda ayaa ku dheeraaday hadduu ku guuleysto xilka madaxweynaha Puntland waxa uu qaban doono caqabadaha waaweyn oo aniga igu riixay inaan ka damqado ama dhibaatooyinka dhaqan dhaqaale siyaasadeed iyo bulshada dalkeena haysta waxa kooka siyaasad qabyaaladaysan dadka reer Puntland anigu waxaan aaminsanahay shakhsiyan 3 sano oo ugu horeysay maamulka Puntland sidii charter ku qoray haddii loo hagar bixi lahaa in hal qof hal cod la gaarsiin lahaa iska badaa 17 sano ka dambeysay caqabadaha ina haysta maanta oo igu kalifay inaan xilkan isu soo taago waxa ka mid ah musuqmaasuq baahay oo aan saaban ama saameyn oo kaliya maamulka dawliga ah ee sidoo kale lagu halagalay maamulka iyo sida ay dadka ula isticmaalaan shirkadaha ganacsiga gaarka loo leeyahay qaarkood hay'adaha caalamiga ee gargaarka ama iyo horumarinta iyo xataa bulshada rayidka waxyaalaha challengeska oo aan ka damqanayo iguna dhiirigelinaya hawshan inaan u istaago waxa ka mid ah amniga Puntland oo muddooyinkii ugu dambeeyay faraha ka sii baxaya gudaha iyo dibaddaba sida awgeed ana waxyaalahaas iyo duruufo kale aad u badan oo aan halka lagu koobi karin ka duulay waxaa sharaf ii ah in caawa mar kale halkan hortiina soo istaago anoo si rasmi ah u cadaynaya inaan doonayo inaan u tartamo xilka ugu sarreeya Puntland ee jagada madaxweynaha